mudana madaxweyne haddaanu nahay shacbigii Soomaaliland haddaanu nahay xildhibaanadii anagoo dawladda hoose caasimadda ku matalayna oo maayirku uu nagu hogaaminayo waxa ka dhacday adduunyada wax fara badan 25 milyan ayaa daad ku qaaday koonfur iyo beledweynaha meesha 25 kun oo qoys baa ku naf waayo ku hoy waayo ku guri waayay inagana masiibada qoys bay naga soo gaaray qoyskiina habeenkii saacadaha u gurbatay waa tii ummadoo dhamidooda arkaysa wada daawareysay aad iyo aad baan horta kaaga mahad celinaynaa marka labaad balligan waa balligii labaad kaasoonkii koowaad buu ahaayay hawsha hore ka dhacday ee habeenimada u gurmatay kana waa balligii daami oo isaguna waa balliga labaad halkan waxa biyo way fadhii jireen berigii hore ee bilgo caadiga ahaa iminkana waa kuwa gurigooda dhisay dadka haddii la taabto istiraada ka hagaaji biyaha inta soo jeer baan halkan inta soo wadaan ka saaro meedka meel laga qaadamay lahayn jirin ka bacdi markaan wadooyinka saaranay dadku way nacaayeen waxa lahayn dan yartibay ku ay ku kibriyeen iyagoo caloolo waaweyn oo way nacaayeen haddana maanta masiibada tibi ilaahay horta waxaan ku mahadinaynaa maadaama aan waxba inaga soo gaaray ilaahay baa mahad leh maanta in loo taliyo oo dadkii lagu taliyo oo aanu meel dejino diyaar baanu nahay dhulkiina waa loo hayaa wuu yaalaa dhulkii dadkaas laakiin marka la doonayo in la raro wixii sandaaqada haystan sandaaqadahooda loo raro wixii kalena hooy loo sameeyaa bay u baahan oo dhulkii wax looga dhiso sandaaqado haddii maanta aynu 100 sandaaqado dhisno balliga hareerihiisu way banaananayaan dhulkiina ay dawladda hoose keento bixintii dawladda hoose inteedii badnayd ninkii noogu khibradda badnaa dawladda hoose bixiyay xildhibaantii macade waxa weeye maanta halkan waxaan u diyaarnoon waqti nootiisa ku siinay dadkan in halkan dhaamka dushiisa la baneeyo annaguna aanu dadkii halkii u rarno ka bacdina dhaamkaas oo mushkilad ku haya magaalada iyo labada dhaam ee kale inaanu biyaha ka jabino dabadeedna biyahaasi aan u samayno green age ay ku dhacaan mid waliba dooxa hadduu yahay ka qudhacdheer hadduu yahay kan muxuu ahaa daami iyo hadduu yahay ka xerdigaagtaba saddexda dhaam baynaanu ka sii deyno biyaha laba ka mid a iminka dhaamka qudhacdheer sidii maalinta habeenkii dhawada masiibadu ka dhacday wuxuu deganaa ninku gacankii ay biyuhu soo gelayeen isagu muu lahayn dembigee waxaa lahaa ninkii sandaqadaha ka dhisay nin baana karayn jiray ninkaana hay'adaha booliiskan u gudbinay iminka waxa weeye ninkaasna in wax laga qabto dhaamkiina intaanu dadkii ka rarno iyagana inaanu meel dejinno halkan daami ciddan dul degan oo dhan intaanu ka rarno aanu meel dejinno sidaan aanu dhaamkii ku sii dayno kabacdi inaanu ka dhigno istaanadii ay ugu kala baxayeen hadday hawdka tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa bariga hadday tahay iyo hadday galbeedka tahay waxa weeye waxaa taagan mar kastaba suuqii waxaa naga mashquuliyey basas u kala baxaa galbeed ilaa boorama iyo ilaa burco inaanu kuwaa u soo rarno halkanna qayb ka mida degmada gacan libaax oo debdemiskii ka maqnaa inaanu qayb ka mida debdemiskii aanu uga samayno aad baa mahadsantihiin qoladiina dawladda hoose waxaan farayaa cirku waa tusay balliga inuu buuxaa inaanay biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha florka ah la furo dadka deganna sidii meel loo geyn lahaa iyagana khatarta looga badbaadin lahaa kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabanaysaan idinka leh waa hawshiina waydi sugaysaa qorshaha fog laakiin 40 saacadood joogno daruurta taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaan ama habeen shaqeeya ama maalin shaqeeya ciidanka doontaan gurmad u dirsada hadaa ciidanka xoog u baahantiin hadaa u baahantiin buldoosaro haduu shicib leeyahay haddii dawladdu hayso dhammaan inta loo gurmado magaalada sida ugu biyaray biyahaasi aan ugu fatahayn ayaanu ka rabnaa 40 saacadood soo socda timacadow mudana madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa dhaamkii jigjiga yar run ahaantii biyihiisu imika way ciirciirayaan waxaana weeyaan haliso badan baa ka imanaya butaacada halkan waalkii ay biyaha ku celinayay dhaamku maalmahanba maayarku iyo golaha deegaankuba naftay wadnahay farta ku hayeen dhaamkii daamiya kii qudhacdheerna waa soo marteen dadkii waxaanu uga taaglaanay meelihii biyo mareennada ahaa habeen iyo maalin inta waa loo digayaa dawladda hoose way u digaysaa insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaynu qorsho
ay dadkeennuna kaga badbaadaan biyahana aynu kaga sii dayno dhaamamkaas. waxayna tahay maanta waxaanu soconno waa inaynu magaaladii kala badbaadino biyaha dhaamka buuxa. marka waxaan idinka doonayaa inaad furtaan iminka biyaha si haddii maanta caaw roobka usoo udoo taa daruurta lagu taagane aanay magaalada u jeerin. kan waa sahaala tidhahduna laba saddex qoys baa degan kan maanta geli ka damba saara dhibaato waxaa ka joogtaa kii kale guryo badan degeen iyo dad badan bal sida ugu nabadgelyo badan ee biyaha lagu sii daynayo kaa daame aynu xoog isu geyno hawshaynu haynaa maanta waa inaan magaalada aanay biyo ku jabin aad iyo aad baa mahadsantihin.